gudoomiyaha degmada Axmed Dhagax Injineer Cabdiqaadir Maxamuud Jibriil ayaa u soo jeediyay dadweynaha ku dhaqan degmada Axmed Dhagax inay ilaaliyaan feedhowr isla markaana ay ka fogaadaan goobaha meheradaha iyo kabadhada ee dadweynuhu isugu yimaadaan isagoo fariinta wacyigelinta u faraya bulshada ku nool degmada Axmed Dhagax ayuu ku dheeraaday sidii ay feedhowrka u ilaalin lahaayeen iyadoo ay waaxda Axmed Dhagaxna ugu jirto hawl ballaaran iyo olole caafimaad intaba inay u dhiga nuglaadaan fariintaasi waxaanu dadweynaha degmada Axmed Dhagax aanu ku wacyigelinaynaa oo aanu faraynaa inay ka feejignaadaan goobaha la iskugu yimaado sida waxa weeyaan maqaayadaha meelaha yar ee dabakaayooyinka inay ka feejignaadaan goobaha la iskugu imanayo ee crowdedka ah ama waxa weeyaan lagu kulmayo waxa weeyaan xanuunkan COVID-19 ilaahay waxa weeyaan haynaga hayay wuxuu leeyahay ka hortag daweyn ma laha hortagiisuna waxa weeyaan inaynu ku dhaqano oo aynu qaadano awaamiirta iyo waxa weeyaan fariimaha ayna farayaan wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waxa weeyaan guddida heer qaran ee ka hortaga ama waxa weeyaan xanuunkan COVID-19 awaamiirtaas inaynu qaadano oo guryaha la joogo meelaha buuqa la isugu yimaado faradhaqitaanka ama farxalka la badiyo waxa weeyaan had iyo jeerna waxa weeyaan wacyigelinta sideeda loo qaato anagu ka degmo ahaan waxa weeyaan waxaanu talabashadeedii wadnaa ama waxa weeyaan kulankeygii aanu qaban qaabinaynaa sidii heer degmo aan magaranaysa iyagu wacyigelinteeda aanu bilaabi lahayn ee aanu kobcin lahayn marka waxa weeyaan bulshada degmada iyo guud ahaan caasimadda Hargeysa waxaan ku wacyigelinayaa in waxa weeyaan goobaha la isugu yimaado ay ka feejignaadaan especially waxa weeyaan maqaayadaha iyo goobaha qaadka lagu cunayo iyo meelaha la isugu imanayo arrinka labaad ee aan rabo inaan taabtaano waxa weeyaan ka degmo ahaan degmooyinku waxa weeyaan waxay ku shaqeeyaan waa dhaqaalaha bulshada loo adeegayo laga soo wariyo marka waxa weeyaan dadweynaha degmada Axmed Dhagax waxaan leeyahay wixii ay cashuurta ku harsan tahay oo dhan fadlan hala soo bixiyo cashuurta degmada ee ardayadaha liisamada waayo waxa weeyaan waxa la idinku adeegayaa waa cashuurta aad soo bixinaysaan